xarunta dhabada tareenkii hore ee Dirdhabayl Dawalla ayaa ka warbixisay in ay soo diyaariyeen ama ay soo kordhiyeen adeeg cusub oo bilicda magaalada kor u qaadaya sida uu sheegay maareeyay ku-xigeenka dhabada tareenka ee Dirdhabayl iyo Dawalla Mudane Muuse Dhabar isagoo tibaaxaya in xoogga la saari doono kor u qaadista hawlaha dalxiiska iyo bilicda tareenkuna uu yahay hantida maguuraanka ah ee magaalada Dirdhabayl iyo gobolka City ee ay haystaan saas awgeedna ay bilaabi doonaan gaadhigani tareenka ee aad aragtaan ma idin muuqda in uu bixin doono adeega sawirada iyo muuqaalada in lagu qaadi karo ama lagu qabsan karo gaar ahaan dadka qabsanaya munaasabadaha ay ka midka yihiin aroosyada xalfadaha sida sawirada iyo sidoo kale wixii lamid ah waxaana uu tibaaxay inuu bilaabi doono hawlahaasi waxaana uu ka bilaabi doonaa wadada ballaaran ee hadda ay ka socoto casriyeynta ama qurxinta wadada cirifyadeeda ama saad u taqaanaanba koridharka waxaana uu ka bilaabi doonaa goobta number 1ka ama wadada weyn ee number 1ka ka soo leexanaysa ilaa iyo Vera Pasta laga gaarayo Mudane Muuse Dhabar oo ah maareey ku-xigeenka dhabada tareenka ee Dirdhabayl Dawalla ayaa hadalkiisa waxa ka mid ah sida tan muhiimadda maanta xagan aan barnaamijkan u diyaarinayno waxa weeyaan waxa loo ogsoon yahay shirkaddan tareenka dhabada xadiidka waxa lagu yaqaanay waagii hore nidaamka transportationka iyo warshadaha marka waxaan ku soo biirinay aalad kale oo cusub oo xagga la xidhiidha dhaqanka iyo dalxiiska waliba dhinaca dalxiiska waxaan ugu talagalnay insha allahu tacaala saad ogsoontiin gaarigan aan imika saarannahay tareenkan aan saarannahay baan odhan karaa waa tareenkii aan ku soo dhaweynay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo kaxeeyay isaga laftigiisu uu waday oo uu arkay in ku casuunay isla markaa waxaan hindisa ah in aan uga faa'iideysano maanta isbedelka ka socda dalka dhaqaalaha dalka ku soo kordhaya isbedelada ka socda isbedelada horumarinada meesha ka socda waliba marka ugu horeyso maaragtay shaqada koridharka ugu horeyso ee qurxinta iyo bilicda taa annagoo la xiriirsinayna tareenkaygana la xiriirsinayna maadaama uu meelaha ugu muhiimsan uu maray maaragtay laga sameeyay koridharka laga sameeyay imanka marka laga bilaabo xaafad maaragtay wadadan isgoyska ilaa iyo warshada Vera Pasta intaan gaarayno inta ugu dhaxayso waa meelaha ugu bilicda quruxsan ee loogu talagalay imanka koridharka in maaragtay dadku ay dalxiis ku yimaadiin habeenkii ku nastaan ay dhaartii yimaadiin carruurteena ku ciyaaraan recreationka loogu talagalay meeshaasi waxaan rabnaa inaan isla xiriirino tareenkayga inaan isla xiriirino rabnaa saas laajigeed barnaamijka aan imika aan wadna kaas weeyaan laba arrimood oo muhiim ayuu leeyahay marka barnaamijkaas midda koowaad waxa weeyaan habeenkii saacadan oo kale inaan baabuurka halkan ka tago oo wadada maaragtay markuu laamida isgoyska laamida uu dhaafo meesha biyo ay ka bilaamayaan biyo maaragtay koridharku ka bilaamayo inuu joogsado dadka habeenkii halka imanaya inay raacaan ilaa Vera Pasta inta koridharku ku dhamaanay dhulka ay tagaan shirshir u tagaan wax yar oo aan maaragtay yaka maaragtay yakana dalxiis yaka u noqoto oo maaragtay u noqoto maaragtay habeenka nasashadoodu nasasho fiican ay u noqoto annaguna wax yar oo dakhli aan keenno muhiimadda koowaad ta labaad waxa weeyaan waxa la ogsoon yahay maaragtay bulshada taranka bulshada wuxuu ku xidhan yahay waa guurka iyo nidaamka dhaqanka isguursiga lamaanuhu ay madoobayaan taas darteed imanka dhulkan imanka koridharka la sameeyena waa meelaha ugu bilicsan ee ugu qurux badan ee soo maraan caroosyada ay soo maraan ee maaragtay ay u tagaan dalxiisnimada ay u tagaan taas laajigeed tanna inay uga faa'iideystaan baan rabnaa mudarisiinta baan u diyaarinay inay yimaadaan oo caroosyada halkan si qurux badan bay u soo baxaysaa marka halkan iyaku carooska dul jooga keegii oo lagu dul goynayo koridhar limaadkii maaragtay iyo wixii oo dhan oo maaragtay bilicdeedii backgroundga u qabanaya xagga horena u qabanaya nidaam aad u qurux badan oo fiican bay iyakana u noqonaysaa oo dhulkii maaragtay manaafashayada la tagayay meel ka qurux badan baa imanka la sameeyay koridhar oo ka qurux badan oo ka bilicsan biyaha leydhka cawska geedaha lagu beeray meelaha sida loo ranjiyay nashqadeynta loo sameeyay aad bay u soo jiidanaysaa arrintaasna inaan u sameynaan doonaa saas darteed waliba waxaan casuumadaan u sameynaynaa dadka aan u sheegi doonaa insha allahu tacaala xaggan miidiyaga uga sheegaynaa caroosyada kuwa ugu horeeya ee na soo codsadee noo yimaada labada caroos ugu horeysa bilaash baan ugu sameynaynaa waa soo dhaweyn bilaash baan ugu sameynaynaa annagana waxay noo tahay xayisiis bay noo tahay iyakana waxay tahay maaragtay faa'iidaysi badan bay noqonaysaa taa marka la arko annagana waana loo iman doonaa marka barnaamijka ugu muhiimsan ee nidaamka maanta ugu socona waa taas weeyaan